munaasabadan lagu soo gabagabeeyay seminar socday muddo 5 maalin oo loo qabtay dhalinyaro iyo haweenka ku dhaqan degmada Xamarweyne oo lagu baranayay dawlad wanaag iyo xalinta khilaafaadka ayaa waxa lagu qabtay xarunta degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaana shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dadkii ka faa'iideystay seminarkaasi. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha degmada, haweenka, dhalinyaro iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid waxyaha ay ka kooban tahay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Suufi oo ka hadlay seminarkaasi ayaa ka warbixiyay dadaalka ay wadaan maamulka degmada kaasi oo sare loogu qaadayo garaadka dhalinyarada ku dhaqan degmada Xamarweyne. runtii waxa waaye anaga ku hadlay magaca gudoomiyaha diis community-ga degmada Xamarweyne waxa weeye runtii waxaan ku dhaqaaqnay si degmadeena horumar ku gaarto safarro ayaan u galnay ilaa maaragtay Kampala Interview iyo shirar aan soo qayb galnay si degmadeena u noqoto degma bilaadeena isbedesha degma maaragtay qurux badan degma hoolal leh degma maaragtay xafiisyo leh degma mas'uul leh degma maaragtay dhinac kasta maaragtay ka horumarto marka wax badan waxa weeye anoo ku hadlay magaca maaragtay 15 xubnood ee diis community waxaan ku tafahaysanay oo har iyo habeen u soo jeednay oo waqti kasta aan u soconay meel kasta aan u tagaynay waxay ahayd in degmada Xamarweyne horumar la taaban karo in ay gaarto ay ahayd. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa ku booriyay dadkii ka faa'iideystay seminarkaasi inay u gudbiyaan waxyaabaha ay ka faa'iideysteen bulshada inteeda kale ayna ku dadaalaan ka shaqaynta nabadda iyo horumarka degmada. seminarkii ku saabsanaa maamul wanaagga xalinta khilaafaadka iyo mowduuc fara badan oo aad seminarkan ka barateen oo intaba hal magaca isugu daray la yidhi capacity building. ardaydaas muddada u socotay seminarka oo ku bartay mowduucyadaas oo dhan aan rajaynayo inay wax badan ka faa'iideen. cilmiga idin sheegaya waa qurux dadka oo la labisto oo keliya qurux maaha in abwaana oo gabyaaye oo caraba wuxuu yidhi laysa aljamaala biatwaabin tuziinuna ina aljamaala jamaalu lcilmi waladab. quruxda ma ahan dhar oo aan soo labisano oo jaakad aan soo xirano halkaan soo fadhiisano maaha. quruxda waxaa waaye cilmiga jamaalu lcilmi waladab waa cilmiga iyo akhlaaqda waxbarashadaas waa qofka sidaa wax u bartay asaar muuq samaysan oo meel walba gali karaa meeshu kale lagu iftiimaa. intaan kuma ekaan doona maamulka degmada tababarada soo qabanqaabinayo u diyaarinayo laamihii iyo tabeelihii ilaa iyo waaxyaha ka socda intaba. muddooyinkan ayaa maamulada degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay wadeen dadaalo sare loogu qaadayo garaadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.